Asalaamu calaykum asxaabta, waxaan leenahay ciid mubaarak. Halkan waa Saciid Madaali Sports. Waxaan kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyay ciyaaraha. Waxayna fiiri doonaa tababaraha Liverpool oo cawday ka hor kulanka Brighton, iyo waxayna fiiri doonaa Liverpool iyo Brighton waxaa laga yiri Chelsea iyo sidoo kale Everton. Saaxiib ilowina subscribe saarto, like-na dhahdo fiidiyoga si uu u gaaro meel dheer. Haddii aan ku bilaabno tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool, Arne Slot ayaa cawday, wuxuuna yiri waxaynu ka xunnahay ayuu yiri in 72 saacadood gudahood 2 kulan aan ciyaarno, ama wax u dhow 72 saacadood ayuu yiri inaan 2 kulan ciyaarno ayaan aad ugu xunnahay. Wuxuu yiri toddobaadkii ugu dambeeyay Liverpool ka hor fasaxa caalamiga ee bishii Maarso ayuu yiri mashquul badan ayaa jira iyadoo jiraan kulamo muhiim ah oo aynu soo ciyaarnay ayuu yiri Champions League iyo Premier League oo muddo ka yar 72 saacadood. Wuxuu yiri macnaha ciriir aynu tahay Arbacada ayaan soo ciyaarna, haddana Sabtida ayaan ciyaarna. Wuxuu yiri fursad uma haysano aan si fiican ugu tababarno. Iyo Arne Slot tababaraha ay sidoo kale wuxuu sheegay in Liverpool aysan helin waqti ku tababartaan ka hor kulanka ay la ciyaarayaan Brighton Hove Albion. Slot wuxuu shaaca ka qaaday in jadwalka ciriiriga ay u dhexeeya kulankii kala staraa iyo sidoo kale kan Brighton uu ka dhigay tababarka mid ku dhawaad aan suurtagal ahayn ka hor kulanka dhamaadka toddobaadkan ay la ciyaarayaan kooxda Brighton. Liverpool ayaa u safraysa garoonka Emirates si ay ula ciyaarto kulankooda ugu dambeeyay ka hor fasaxa caalamiga ee Maarso, iyadoo og inay helitaanka 3 dhibcood ay suurtagelin karto inay galaan 4 sare ee Premier League. Si kastaba ha ahaatee, diyaargarowga kooxda caqabad la kulantay sababtoo ah waxaa sabab la xiriirta waqtiga hore ee ciyaarta soo galayso, iyo sidoo kale taasoo imaanaysa wax ka yar ama wax ka badan 60 saacadood kadib markii ay dhamaatay guushii ay ka gaareen Champions League habeenkii Arbacada. Slot wuxuu yiri wax ka badan 60 saacadood ayaa inoo dhaxayso ama wax u dhow 60 saacadood kulankii Arbacada iyo sidoo kale kulankan oo maanta Sabtida aan wada ciyaarayno, macnaa duhurnimo ayuu yiri, macnaa saacada xiliga UK duhurnimo ay u tahay mogtahay, anaga xiliga Maghrib ama 6 saac bar meelash ay tahay ay duhurnimo u tahay. Marka Slot wuxuu taagan yahay xilli duhurnimo aan ciyaarno, Arbacadan aan ciyaarno. Wuxuu yiri mashquul badan ayaa jiray, sidoo kale wuxuu yiri ciyaaryahankeena Mohamed Salah naga baqayaan ayuu yiri, laakiin wuxuu yiri si walba waxaan isku dayi doonaa ayuu yiri inaan soo badino. Waxaan fiiri doonaa xulashada ama line-up-ka uu Slot ku soo gari karo, aan fiirin doonaa. Waxaa leeyahay goolhaye wuxuu kusoo bilaabi karaa Mamar Dashvilia ayaa lagu bedeli karaa Alisson Becker, maadaama hadda waxaa la yiri Alisson Becker uma safrin garoonka Emirates ee Brighton uma safrin. Difaaca Jeremy Frimpong waa la keeni karaa, Andre Robertson sidoo kale diyaar waaye, Milos Krikos sidoo kale asagana waa diyaar waaye. Qadaxa kale ee Curtis Jones iyo Mac Allister midkood ayaa la saf karaa. Ryan Gravenberch iyo Dominic Szoboszlai waa la saf doonaa baa la yiri. Florian Wirtzna wuxuu sii joogayaa la yiri garabka bidix isagoo xor u ah inuu dhexda soo galo. Marka qodobada muhiimka ah maxaa waaye, marka Liverpool waxay u baahan tahay 3 dhibcood kooda qodobkaas dhab dheh. Liverpool waxay u baahan tahay 3 dhibcood si ay u sii jirto tartanka top 5 ka dheh, maadaama xalay Brighton la geliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Marka dhibaatooyinka dhaawac iyo daal ayaa saameeya diyaar garowga, macnaha wuxuu yahay dhaawacyada galay daalna waan dareemeynaa. Ciyaartan waxaa fursad fiican ka hor international break, macnaha ciyaartan waxay u haystaan fursad inta la aadan ciyaaraha caalamiga. haddii ay hadda 3 dhibcood qaataan markay soo noqdaan toddobaadka fasaxa caalamiga, iyagoo 3 dhibcood haysto top 5 ka ku jiro, niidda ay soo noqonayaan. balse hadda la garaaco iyadoo aan wax niid aan haynin ay soo noqonayaan, iyadoo niid jabsan iyo xulka aadayaan. Marka xulashada kooxda waxay muujinaysaa in Arne Slot uu doonayo inuu isku dheelitiro daalka ciyaartooyda sidoo kale dhaawacyada iyo muhiimadda kulanka uu leeyahay. haddii isbedel shaqeeyaan, Liverpool waxay si xoog leh ugu soo laaban kartaa tartanka. Macnaha haddii 3 dhibcood ay qaataan Liverpool, tartanka top 5 way kusoo noqon kartaa. Marka macnaha 2 tartan ayaa jira, Brighton hoos ayay ka cararaysaa, Liverpool waxay rabtaa top 5 ka ay rabtaa. Marka 2 tartan ayaa jira. haddii kale haddaan fiirino kooxda kubadda cagta Chelsea Everton ayaynu fiirin doonaa maxaa laga yiri. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxay u safraysaa, waa safarkii ugu horeeyay ee Chelsea ay ku tagaan Hill Dixon Stadium oo ah garoonka cusub ee Everton. Waa garoon lagu bedelay garoonka hore ee lagu magacaabi jiray
kii garoonka hore lagu magacaabi jiray Gobsenberg lagu magacaabi jiray ayaa garoonkan lagu bedelay waaye. Garoonka cusub ayaa waxaa lagu bedelay Gothenburg oo kooxda ku ciyaaraysa muddo 133 sano, macnaha 133 sano garoonka ay Everton ku ciyaaraysa waa laga bedelay. Garoon cusub ayaa la sameeyey, wuxuu qaadi karaa garoonkan ilaa 52,700 taageere, wuxuuna ku yaalaa hareeraha webiga Mersey. hareeraha webiga Mersey ayuu ku yaalaa garoonkan. Xaaladda labada kooxood haddaan fiirino, Chelsea waxay u safraysaa ciyaarta iyadoo u baahan 3 dhibcood oo muhiim ah si ay u sii wadato rajadeeda ka qaybgalka tartamada Yurub ee sanadka dambe. macnaha Chelsea waxay rabtaa 3 dhibcood inay soo qaadato sanadka dambena ay ka qayb gasho tartamada Yurub. Everton oo uu maamulo David Moyes waxay ku jirtaa xilli isbedel ah maadaama bilow fiican ay ku sameeyaan season-kan 5 kulan oo horeys aan laga badan, kadibna waxay galeen 6 kulan oo aan guul gaarin, macnaha 5 kulan oo horyaalka ugu horeysa guul ay gaareen lama badan, laakiin kadib 6 kulan ayaa la garaacay liiday. kulanka ugu dambeeyna gurigooda waxay ku garaaceen Burnley oo 2-0 kaga badiyeen, macnaha ka hor kulanka Arsenal away ahaan mugtahay, macnaha garoonkan cusub waxay kaga badiyeen kooxda Burnley ay 2-0 kaga adkaayeen liiday. qaab ciyaareedka Everton gurigooda marka joogaan waxay hadda ku jiraan heerka 14aad marka loo eego waxqabadka guriga ee Premier League, macnaha marka loo barbar dhigo kooxooyinka ku fiican gurigooda Premier League marka la joogo, macnaha away iyo home-ka awayga way mugtaa, guriga marka joogto waxay kaga jirtaa booska 14aad macnaha kooxooyinka ugu fiican ee guriga oo ay kamid tahay Arsenal sida Man City iyo dadkaas gurigooda inta badan lagu garaaco. Arsenal season-kan gudihiisa hal mar bis ayaa lagu garaacay gurigooda, waxaana ku garaacday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Manchester United. macal Premier League macal wax dhan, macnaha sanadkan dhan wax tartan oo Emirates ka dhacay Manchester United bis ayaa kusoo baastaasana waxay Arsenal number 1 u tahay kooxooyinka ugu fiican gurigooda marka la joogo. marka Everton waxay ku jirtaa booska 14aad ee ugu fiican gurigooda. haddii aan fiirino taariikhda Chelsea ee safarada banaanka, marka Chelsea ay aadayso kulamada aweega banaanka, Chelsea waxay hore u baasay Everton garoonkooda Agosto 2022 hal ewer ku soo adkaatay. 2022 garoonka Everton ayaa la tagay, Chelsea ayaa hal ewer ku soo badisay. kulanka ugu dambeeyay ay ku ciyaareen waqtiga 11 barka UK waxay ku garaaceen Tottenham Hotspur ayaa liyay. Tottenham gurigeeda ay tageen way soo garaaceen. Everton ay sanadka 2022 tageen ay soo garaaceen. marka maxaa laga fili karaa Chelsea aad ay ugu fiican tahay labada kulan ee banaanka ay aadeen, banaanka aad ay ugu fiican laakiin gurigood bis ay ku liitaan. marka maxaa laga fili karaa kulankan Everton waxay isku dayayaan inay ka faa'iideystaan taageerada guriga cusub maadaama home-kooda uu cusub yahay. waxay isku dayayaan inay ka faa'iideystaan taageerayaasha, weli waxay raadinayaan joogtiin ay leedahay maadaama garoonkooda mar dhow la daahfuray. Chelsea waxay doonaysaa inay sii xoojiyaan tartanka boosaska Yurub, khibradda iyo taariikhda wanaagsan ay ku leeyihiin kulamada noocan ah. marka gabagabadii kulankan waa mid xiiso gaar ah sababtoo ah waa markii ugu horeysay Chelsea ay ku ciyaarayso garoon cusub ay Everton ay leedahay. labada kooxoodna waxay leeyihiin ujeedooyin kala duwan. ujeedada koowaad ee Everton waxaa waaye inay hoos ka badbaado, macnaha oo 3 dhibcood inay ka badbaado. ujeedada kale ee Chelsea waxaa waaye inay kasoo qayb gasho tartamada Yurub. Everton weli waxay la qabsanaysaa gurigeeda cusub halka Chelsea ay raadinayso joogteen. saaxiibayaal, falanqeyntii labadan kulan intaan ku edgiin waxaan ka rajaynaynaa 100 subscribe na gaarsiisaan munaasabada Ciidul Fitri darteed. waad mahadsantihiin saaxiibayaal, ha ilowna subscribe na saartaan, like dhahdaan fiidiyowga, aadna u share gareysaan asxaabtiina. waad mahadsantihiin meel walba aad joogtaan.